macluumaad degdeg ah oo ku saabsan Twitter-ka sidaan wada ogsoonahay Elon Musk markuu gatay Twitter-ka wuxuu ku sameeyay isbedel aad u fara badan calaamada verification-ka ama blue tick-ta ah wuxuu ka dhigay lacag si qof walba uu gato halka awal hore ay ka ahayd dadka madaxda ah ama caanka kaliya in la siiyo waxyaabaha hadda Elon Musk uu Twitter-ka ku soo kordhiyay waxa kamid ah in monetization uu u furay oo Twitter-ka lacag aad ka sameyn karto laba shuruudood kaliya ayaad buuxinaysaa inaad calaamada blue tick-ta gadato iyo sidoo kale inaad haysato 1000 followers laakiin si aad lacag uga samayso ciwaankaaga Twitter-ka waa in engagement fiican waliba lacagta uu Twitter-ka bixinayo waxay ka badan tahay lacagta ee Facebook iyo YouTube ay bixiyaan sidoo kale Elon Musk wuxuu sheegay inuu bedelayo calaamada aqoonsiga ama loogada Twitter-ka wuxuuna ku bedelayaa calaamadan X waxaana la filayaa in Twitter-ka magaciisa dhan loo bedelo X waxayna sheegeen qorshaha uu Elon Musk ka damacsan yahay shirkadihiisa inuu u wada bixiyo magaca X sababtoo ah kambaniga ugu horeeyay oo Elon Musk aaso waxaa lagu magacaabaa X hadda kadibna Twitter-ka wuxuu isku bedeli doonaa X